bismillaahi raxmaani raxiim. soo dhowaada daawadayaal waa barnaamijkeeni tusmada caalamka oo aynu qaybtan kaga hadli doono xayawaanada ugu saaxiibtinimada wanaagsan adduunka, islamarkaana aad u riyaaqi doontid habka ay ula dhaqmaan bini'aadamka markaa la saaxiibka ah. muuqaaladan kooban ee aynu ku daawanayno barnaamijkeennan waxay caddayn buuxda u noqonayaan xayawaanadaas iyo saaxiibtinimadoodu sida ay bini'aadamka ugu wanaagsan tahay, faa'iidana ugu leedahay. barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya aniga oo Mukhtaar Maxamed Deriye ah, Mukhtaar Jambaq. haddaba intaynan uga gudagelin warbixinteennan, fadlan muuqaalkeena like saar, wixii talo ahna comment ku hoos noogu reeb. haddaad nagu cusub tahayna fadlan subscribe saar, gambaleelkana furo. mahadsanid. daawade xayawaanka ugu horeeya ee aan ku soo qaadanayno barnaamijkeenani waa xayawaanka loo yaqaan maroodiga. maroodigu waxaynu naqaanaa waxyaabo badan oo ay bini'aadamku uga faa'iidaystaan, oo ay ugu horeyso in bini'aadamku gaadiid ka dhigtaan, isla markaana ay kaga tallaabaan dhulalka webiyada ah ee aanay bini'aadamku iyaga gaarkood u mari karin. haddaba taa waxaa u dheer, maroodigu hadba qofkii la saaxiiba waxa uu ka dhigtaa saaxiib dhow, isla markaana haddii lagu tababaro ciyaaraha kala duwan ee adduunka fulin kara waxyaabo badan oo indhaha bini'aadamku aanay yaqiinsanayn. maroodigu waxa uu saaxiibkii ula ciyaaraa si dhow oo kalgacayl leh. taa waxaa makhraati inoogu ah muuqaalkeennan aynu daawanayno. maroodigu waxa uu soo bandhigayaa hab ciyaareed aad u cajiiba, isaga oo ka farxinaya islamarkaana raali gelinaya labada nin ee la saaxiibka. daawade, maroodigu waa saaxiib kal furan oo raali geliya hadba qofkii la rafiiqa. xayawaanka labaad ee aynu ku soo qaadanayno barnaamijkeenani waa xayawaanka loo yaqaano haambaradu. haambaradu haday jeer waxay ku jirtaa badda iyo dhulka biyaha ah, inagoo taa og inaynu ku nool nahay beriga. hase ahaatee taasi inagamay xidhin inaynu la saaxiibno. haambaradu ani ahaantay waxay tahay xayawaanka ugu saaxiibtinimada wanaagsan adduunka, sababtoo ah qofka la saaxiiba waxay u soo bandhigtaa daacadnimo cajiiba iyo ciyaar uu aad ugu riyaaqo. bal daawo muuqaalkeennan sida ay haambaradaasi u raali gelinayso saaxiibkeed. waxay ula ciyaaraysaa siyaabo cajiiba oo aanay indhahaagu malayn karin, taas oo uu ku tababaray saaxiibkeedan rabaystay. xayawaanka saddexaad ee aynu ku soo qaadanayno barnaamijkeenani waa xayawaanka loo yaqaano libaaxa. libaaxu waxuu ka mid yahay xayawaanada daalinka ah, islamarkaana khatar ku ah nolosha bini'aadamka. taa cagsigeeda, libaaxu waa saaxiib kal furan haddii aad rabaayadaysato islamarkaana aad ku tababarto habkii uu kuula noolaan lahaa. libaaxu marnaba ma dhibaateeyo saaxiibkiisa soo korsaday, islamarkaana u quudiya si hagarlay ah. libaaxu waa xayawaan xasuus badan. haddii muddo badan aad kala maqnaataan adigoo oo soo korsaday, islamarkaana uu meel kale kaaga soo baxo, wuxuu kuugu farxayaa sidii inuu yahay qof bini'aadamiya. waxa uuna kuula ciyaarayaa si aanad qiyaasi karin. bal qiimee oo daawo muuqaalkeennan. waxay caddayn u tahay saaxiibtinimada libaaxu in ay tahay mid aad u wanaagsan, islamarkaana farxad gelinaysa qofkii soo korsaday ama la dhaqmay libaaxa. xayawaanka afraad aynu ku soo qaadanayno barnaamijkeenani waa xayawaanka faraska loo yaqaano. farasku waa gaadiidka ugu wanaagsan ee intii bini'aadamku jiray ay isticmaalaan. farasku hadba ninkii dhaqdaa waa sida uu tababaro. farasku waa saaxiib kal furan oo siyaabo badan oo qofka bini'aadamka ah raali geliya oo uu ku farxo ula dhaqma. farasku waxa uu ugu horeeyaa xayawaanada farakutiriska ah ee leh dareenka lixaad, dareenkaasoo ah dareen ka baxsan shanta dareen ee aynu garanayno. farasku waxa uu saaxiibkii ama cidda markaa iskale u sheegaa hadba xaaladda adag ee ku soo socota. haddii cadow soo weerarayo iyo haddii masiiba ku soo socotaba, waxa uu muujiyaa baaqyo uu garanayo qofka markaa iskale. faraska haddii aad si wanaagsan u tababarto, wuxuu kula ciyaarayaa si aanad malayn karayn. waa saaxiib kal furan oo siyaabo badan nolosha ugu faa'iideyn kara. daawade, xayawaanka shanaad ee saaxiibtinimadiisu wanaagsan tahay ee aynu ku soo qaadanayno barnaamijkeenani waa xayawaanka loo yaqaano shabeelka. shabeelku sida libaaxa waa xayawaan daalin ah ee halista daran ku ah nafta iyo nolosha bini'aadamka. taa cagsigeeda, waa xayawaan sida libaaxa haddii aad ku tababarto sidii uu ula noolaan lahaa bini'aadamka, waxa uu noqonayaa saaxiib wanaagsan, islamarkaana raali geliya qofkii soo korsaday ee rabaayadaystay. muuqaalkeennan ayaa caddayn inoogu filan. bal eeg sida uu ula ciyaarayo saaxiibkii. daawade, xayawaanka lixaad ayaynu ku soo qaadanayno barnaamijkeenani waa xayawaanka loo yaqaano eyga. eygu waa xayawaan ay diinteennu inaga mamnuucday inaynu ka agdhowaanno, islamarkaana taabashadiisu ay xaaraan inagu tahay, islamarkaana laynagu waajibiyey inaynu si gaara isaga maydhno taabashadiisa. hase ahaatee, eygu waxa uu ka mid yahay xayawaanada ugu saaxiibtinimada wanaagsan adduunka, iyadoo laguma sheego inuu yahay xayawaanka ugu wanaagsan ee lala saaxiibo. eygu waxa uu kuu noqonayaa gaar ilaaliya naftaada, islamarkaana sida la isku raacay waxa uu ka mid yahay xayawaanada leh dareenka lixaad ee kuu tilmaamaya xaaladaha adag ee kugu soo wajahan. eygu waa gaar ilaalinaya naftaada intaad nooshahay iyo markaad dhimataba.
ilaa inta laga duugayo. Guriga eeygu joogo waxa ka caganaanaya wax kasta oo qofka bini'aadanka khatar gelin kara. Eeygu si dhow ayuu ula ciyaaraa bini'aadanka oo ula dhaqmaa, waana xayawaanada had iyo jeer la nool bini'aadanka ee aynu inaguba garanayno. Daawade, xayawaanka toddobaad ee aynu ku soo qaadanayno barnaamijkan waa xayawaanka loo yaqaano bisada. Bisadu waa xayawaanada la nool bini'aadanka isla markaana ku dhaqma guryaheena. Bisadu waxay bini'aadanka ka difaacdaa xayawaanada jiirka iyo masaska. Guriga ay joogto labada xayawaan midna ma soo galaan. Bisadu waa saaxiib ku agdhow bini'aadanka isla markaana haddii la tababaro siyaabo badan oo qurux badan kula ciyaaraya, kuguna raali gelinaya. Daawade, xayawaanka sideedaad ee aynu ku soo qaadanayno barnaamijkeenani waa xayawaanada loo yaqaano shimbiraha. Muddooyinkii hore shimbiruhu siyaabo kala duwan ayay ugu adeegi jireen bini'aadanka, iyagoo waayihii hore ay shimbiruhu ahaayeen qaar fariimaha u kala qaada bini'aadanka isla markaana noocyadooda kala duwan ay bini'aadanka ugu adeegaan qaabab kala duwan. Shimbiraha gorgorka ama galeyrka waxay bini'aadanku u isticmaalaan inay ku ugaarsadaan waqtiyada lagu jiro ugaarsiga. Shimbiraha aynu u naqaano xamaamku waa shimbiro ku suntan nabadda adduunka isla markaana waxay ku noolaadaan meelaha nabaddu ay ka jirto iyadoo bini'aadanka ula dhaqma siyaabo dhow. haddii aad si gaara u tababartana waxa ay ku noqonayaan saaxiib dhow oo kal furan. Xayawaanka sagaalaad ee aynu ku soo qaadanayno barnaamijkeenani waa xayawaanka loo yaqaano daanyeerka. Daanyeerku waa xayawaan markiisa horeba qalqaalaya, hase ahaatee haddii aad si dhab ah u tababarto waa xayawaan amar qaadasho badan isla markaana farxad gelinaya noloshaada. Waa saaxiib dhow oo kula noolaanaya sidii qof bini'aadmiya. Daanyeerku waxa uu ka mid yahay xayawaanada sida gaarka ah loogu adeegto. Tusaalena waxaa inoogu filan muuqaalkan aynu daawanayno. Daawade, xayawaanadan aynu soo sheegnay dhammaantood waxay ku wanaagsan yihiin la saaxiibitaanka iyo la dhaqanka bini'aadanka. Hase ahaatee inta kuma koobna xayawaanadu ee waa inta ugu muhiimsan uguna saaxiibtinimada wanaagsan ee la sida gaarka ah ula dhaqma nolosha bini'aadankana marka ay ka agdhowaadaan farxad geliya. Barnaamijkeennii aynu kaga hadlaynay xayawaanada ugu saaxiibtinimada wanaagsan adduunka waa naga inta aynu ku kulmayno barnaamijkan oo kale ah waxaanu idinkaga tegaynaa ammaano Allah iyo isu soo noqod wanaagsan.